Calaamadaha menopause waxay noqon karaan digniin hore oo ah calaamadda waallida bandhigyada daraasada. Hilibka kulul, dhididka habeenkii, qallayl siilka, caabuqa kaadi mareenka, caadada aan joogtada ahayn, libido hoose, hurdo la'aan, ceeryaamo maskaxda, isbedelka niyadda iyo marar dhif ah, xitaa dareenka carabka oo gubanaya. Maxaa laga yaabaa in dhammaan calaamadahan ay wadaagaan? Dhammaantood waxay noqon karaan calaamadaha menopause. Laakiin calaamadahan miyay tilmaamayaan sheeko ka weyn? Cilmi-baaris cusub ayaa soo jeedinaysa in calaamadaha menopause aysan ahayn kaliya caqabado degdeg ah oo laga gudbo. Waxa kale oo laga yaabaa inay hayaan tilmaamo ku saabsan caafimaadka mustaqbalka qofka oo ay ku jiraan khatarta ay u leeyihiin xaaladaha sida waallida. Si kastaba ha ahaatee, si aan u fahamno xiriirkan, waa inaan marka hore fahamnaa waxa uu yahay menopause iyo sida ay u saamayso maskaxda iyo jidhka. Sidee calaamadaha menopause ay u noqon karaan calaamadaha digniinta hore ee waallida? Waa maxay menopause? Menopause waxay calaamad u tahay dhammaadka dabiiciga ah ee caadada dumarka. Sida caadiga ah, waxay ku dhacaan 4 eber ka dambe ama horaanta 5 eber meeyada. Si rasmi ah, menopause wuxuu qeexayaa maalinta gaarka ah ee qofku uu tagay sannad buuxa oo aan lahayn caado. Si kastaba ha ahaatee, menopause ma dhacdo habeen keliya. Waxay badanaa ku bilaabataa sannado ka hor marxalad la yidhaahdo perimenopause. Inta lagu jiro wakhtigan, jidhku wuxuu u diyaar garoobaa menopause iyo heerarka hormoonka, gaar ahaan estrogen, way isbedelaan. Kala guurkaani wuxuu socon karaa dhowr sano. Inta badan wuxuu keenaa calaamado ay ka mid yihiin caadada aan joogtada ahayn, dareenka kulul, dareenka iyo wax ka badan. Marka caadadu gabi ahaanba istaagto, haweenaydu waxay gashaa menopause. Nasiib darro, calaamaduhu halkan kuma dhammaanayaan. Qaarkood ayaa laga yaabaa inay sii jiraan sannado, waxaana laga yaabaa inay soo baxaan calaamado cusub. Marxaladahan perimenopause, menopause iyo postmenopause dhammaantood waa qayb ka mid ah safar isku mid ah, inkasta oo qof walba khibradiisa ay tahay mid gaar ah. Safarka bukaanka oo dhan aad la mid ah. Iyadoo menopause uu yahay hab dabiici ah, calaamadihiisa wax kale ma dareemi karaan. Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan astaamo fudud ama aan lahayn, halka qaar kalena ay la halgamayaan calaamado badan oo daran oo carqaladeeya nolol maalmeedka. Calaamadaha sida walaaca ayaa ka dhigi kara mid bulsho oo adag. Dhibaatooyinka hurdada waxay u horseedi karaan daal iyo ceeryaamo. Maskaxdu waxay ka dhigi kartaa xitaa hawlaha fudud inay dareemaan cabsi. Si wada jir ah, caqabadahani waxay saamayn karaan fikradaha, dareenka iyo nolosha bulshada, dhinacyada muhiimka ah ee caafimaadka guud. Waa maxay sababta menopause ay arrimaha ka baxsan hadda? Fahamka menopause iyo astaamihiisa waa bilow. Marka laga soo tago marxaladda kala guurka, caqabadaha menopause waxay bixin karaan daaqad gaar ah caafimaadka maskaxda mustaqbalka. Qaado cudurka Alzheimer's oo ah sababta ugu badan ee waallida, oo lagu garto luminta xusuusta sii socota, isbedelka shucuurta iyo shakhsiyadda, iyo ugu dambayntii luminta madax-bannaanida. Dumarka ayaa la wajibaar ka badan ragga inuu ku dhaco cudurka Alzheimer's. Waagii hore, cilmi-baaristu waxay u malaynaysay in farqigani uu ahaa sababtoo ah dumarku waxay ka cimri dheer yihiin ragga, laakiin cilmi-baaris cusub ayaa soo jeedinaysa in isbedelada hormoonnada ee la xidhiidha menopause ay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan. Doorka hormoonnada ee caafimaadka maskaxda. Inta lagu jiro menopause, ugxaan yarigu waxay joojiyaan soo saarista ukunta, taasoo kicinaysa isbedelo hormoon oo muhiim ah. Mid ka mid ah isbedelka ugu weyn ayaa hoos u dhaca estrogen, hormoonka aan lagama maarmaanka u ahayn taranka oo keliya, laakiin sidoo kale caafimaadka maskaxda. Estrogenku waxa uu caawiyaa ilaalinta xusuusta, xoojinta xidhiidhada neerfaha, habaynta niyadda iyo ka saara borotiinada waxyeellada leh ee maskaxda. Marka heerarka estrogen hoos u dhaco, faa'iidooyinkan caafimaad ayaa laga yaabaa inay daciifaan, laga yaabo inay ka tagaan maskaxda iyo jidhka kuwa aad ugu nugul isbedelada waxyeellada leh. Inta lagu jiro isbedelada hormoonnada, calaamadaha menopause ayaa sidoo kale soo bixi kara. Iyadoo calaamadaha mar loo malaynayay inay yihiin kuwa ku meel gaar ah,
Inkastoo aan raaxo lahayn, dhibaatooyinka soo raaca ee menopause calaamadahani waxay sidoo kale muujin karaan isbedelada maskaxda ee hoose ee ku xiran khatarta waallida, caafimaadka garashada iyo dabeecadda mustaqbalka. Iyadoo cilmi-baaristii hore ay baartay sida calaamadaha menopausal ee shakhsi ahaaneed ay ula xiriiri karaan khatarta waallida, kooxdayada cilmi-baarista oo uu hogaaminayo Dr. Ismail oo ah dhakhtar saynisyahan ayaa weydiiyey tirada calaamadaha la kulmay waxay sidoo kale muujin karaan calaamadaha digniinta hore ee waallida. Waxaan sahamiyey tan annagoo falankaynay isbedelada garashada, tusaale ahaan xusuusta, fikirka iyo xalinta mashaakilaadka, iyo dhaqanka, tusaale ahaan shucuurta, shakhsiyadda iyo isdhexgalka bulshada. Iyadoo isbedelada garashada inta badan ay yihiin kuwa maskaxda ugu sarreeya marka laga fikirayo waallida, isbedelada dabeecadda ayaa si isku mid ah muhiim u ah, laakiin inta badan la iska indho tiro, waxayna sidoo kale noqon karaan calaamadaha digniinta hore. Waxaan baarnay xogta 9 ka qaybgalayaasha postmenopausal ee daraasada canbroted, mashruuc canadian online ah oo ku saabsan gabowga iyo caafimaadka maskaxda. Ka qaybgalayaashu waxay dib u xusuusteen nooca iyo tirada calaamadaha ay la kulmeen xilliga perimenopause, waxayna dhammaystireen baaritaano lagu qiimeynayo garashada iyo dabeecadda hadda. Ka qaybgalayaasha dhexdooda 3% waxay la kulmeen calaamadaha perimenopause celcelis ahaan 4 calaamad qofkiiba, oo leh nalal kulul 8% iyo dhidid habeenkii 7% ayaa kuwa ugu badan. Natiijooyinkayagu waxay daaha ka qaadeen in la kulma calaamado badan inta lagu jiro perimenopause ay la xiriirto garashada iyo isbedelada dabeecadda ee dambe ee nolosha. Soo jeedinta culayska calaamadaha perimenopause ma saameynayaan fayoobaanta isla markiiba, laakiin waxay sidoo kale muujin kartaa khataraha caafimaadka maskaxda ee muddada dheer. Iyadoo hababka hoose aan weli caddayn, natiijooyinkani waxay muujinayaan muhiimadda aqoonsiga calaamadaha menopausal inay yihiin tilmaamayaasha hore ee caafimaadka maskaxda mustaqbalka. Waxaa xiisaha lihi leh ka qaybgalayaasha uu isticmaalay daaweynta hormoonka ku salaysan estrogen ee calaamadaha perimenopausal waxay muujiyeen isbedelo dabeecadeed oo ka yar kuwa aan isticmaalin, iyagoo soo jeedinaya doorka suurtogalka ah ee estrogen ee dhimista khatarta waallida. Si kastaba ha ahaatee, cilmi-baaris dheeraad ah ayaa muhiim ah si loo caddeeyo wakhtiga iyo saamaynta muddada dheer ee daaweynta hormoonka. Waxaa muhiim ah in la fahmo in natiijooyinkani ay muujinayaan xiriirka ka dhexeeya culayska calaamadaha iyo caafimaadka maskaxda dambe, laakiin ma caddaynayaan in mid ka mid ah uu keeno kan kale. Waxaan weli u baahanahay cilmi-baaris dheeraad ah si aan u fahamno sababta xiriirku u jiro iyo sida uu u shaqeeyo. Waa maxay sababta cilmi-baaristan ay muhiim u tahay? Cilmi-baaristeenu waxay iftiimisay xidhiidh muhiim ah. La kulma calaamado badan oo perimenopause ah ayaa laga yaabaa inay la xidhiidhaan garashada iyo isbedelada dabeecadda, kuwaas oo ah calaamadaha halista hore ee waallida. Aqoonsiga calaamadahan inay yihiin calaamadaha digniinta ee suurtagalka ah waxay ka caawin kartaa bixiyayaasha daryeelka caafimaadka inay si dhaqso ah u gartaan khataraha oo ay sahmiyaan siyaabo lagu ilaaliyo caafimaadka maskaxda wakhti kadib. Menopause waa ka badan kala guurka nolosha. Waxaa laga yaabaa inay bixiso aragtiyo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka maskaxda ee muddada dheer. Taageerida cilmi-baarista sida canbroted oo weli shaqaalaysiinaysa ka qaybgalayaasha waxay naga caawin kartaa inaan ogaano sida waayo aragnimada menopause u qaabeeyaan khatarta waallida, waddada u haaraysa waxqabadyo hore iyo natiijooyin wanaagsan. Jasper Eckford, sayniska caafimaadka ee master student jaamacadda Calgary, Maryam Kahremani, saynisyahanka xogta cilmi-baarista ee Hotchkiss Brain Institute, jaamacadda Calgary, iyo Dr. Ismail, professor Oming Stoll of Medicine, jaamacadda Calgary.